kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo xilli kastoo iminka idin tahay ku soo dhawaada barnaamijka Jabuuti oo caawa idinkaga imaanaya stuudiyaha Somali Channel ee magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal waxaana barnaamijkan caawa idin daadihin doona anigoo ah Cabdifataax Axmed iyo wariye Xaamud Ibrahim oo booqasho gaaban ku yimid magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal waxaynu barnaamijkan toddobaadkan ku eegi doonaa dadka reer Jabuuti ee u soo xagaabaxa magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyo sidoo kale ciyaar dhexmartay ciyaartooy ka socotay magaaladan Boorame iyo ciyaartooy ka socday magaalada Diqil ee dalka Jabuuti sidoo kale waxaynu barnaamijkan intaynu ku guda jirno ku faaqidi doonaa xaaladda ay ku sugan yihiin xilligan garoomada ciyaaraha kubadda cagta ee magaaladan Boorame waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal barnaamijka Jabuuti. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantiin intaan wareysanaysiin waxaa la yiraahdaa Siman Cabdullaahi Caynaan waxaan ka yimid Jabuuti waan soo xagaabaxay Boorame waan soo xagaabaxay xagaabaxeedu si fiican buu noogu socdaa maalin kasta roob baadaa waa barwaaqo dhulku de reer Jabuutina waan salaami lahaa xagaa baan ka soo salaamayaa soo xagaabaxa sanad kastaan ka oran lahaa sidaa iyo waa mahadsantiin haddaan su'aal ku weydiiyo dadka aad u soo xagaabaxdeen reer Boorame say nii soo dhaweeyeen say niila dhaqmaan si fiican bay noo soo dhaweeyeen si qurux badan imika habla reer Boorame camuudna daawaysiinaya beeraha camuud de way iska fiican tahay wallahi si fiican buu noogu dhacday imika waxaad dhex joogtaa waa jaamacadda camuud jaamacadda camuud seed u aragtaado jaamacad fiican de waa maqlay aniga imikana arkay ma waa jaamacad qurux badan weeyaan beeray leedahay beerahan u soo daawashay manay wax barashadeeduna way iska fiican tahay disaan maqlaano Amaal Abdiraxmaan Alaale waxaan ka soo xagaabaxay Jabuuti oo kaartasanka waxaan salaamayaa horta toogo horeysa madaxweynaha EOJ waan salaamaya iyo maxay ahayd isnaantiisii iyo ciyaalkiisii ainsi que ma famille mon père mon deuxième père Abdullaahi Caynaan et mon père Abdiraxmaan Alaale iyo de asxaabtay kartiga iskoolkayga waa Ilays privé weyn waxaan salaamayaa macallimiinteeni iyo directeurkeeni Amadou iyo asxaabtay asmas ka waran fiicanahay halkan maanta maxaad ka soo doontay beerashaan daawanay magacaaga marka ugu horreysay sheeg bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yiraahdaa ayaan maxamed maasha Allah waan nii hambaleynayaa maadaama oo halkan aad noogu soo dhaweysan inaan ka salaano dadkeena reer Jabuuti waxaan dirnaa salaam weyn waxaan kale aad ugu soo dhaweynaynaa dadkeena noogu yimid Boorame aad baan soo dhaweynaynaa aad baa mahadsantahay ka adiga marka ugu horreysay magacaaga iyo waxa tahay reer Boorame malena aad si fiican magacaygu waa Cabdiqaadir Ismaaciil Guuled waxaan ahay dhalinyarta ku dhaqan magaalada Boorame dhalinyarta reer Jabuuti iyo dadka soo xagaabaxa aad baan u soo dhaweynaa waanagan keenay jaamacadda Camuud iyo dalxiis baan u keenay aad baan u wanaagsan yihiin roobkiina si fiican buu noogu daay dhulkiina waa wada akhtar adigu Jabuuti wali ma aragtay ها si fiican in badan baan arkay 7 jeer batay wallahi waa magaalo aad u qurux badan waa magaaladeedii labaad baan oran karaa aniga in badan baan soo joogay 2 sanaan mar soo joogay waa magaalo fiican annagana halkan markay noogu yimaadaan si fiican baan soo dhaweynaa berigii la yaryaraa berigii hore dadkii hore markay reer Jabuuti yimaadaan waa la shiidi jiray waa la isleen jiray marka haddana noqdaan waa avenigii reer Boorame waxaas ma jiraan imika way dhamaadeen imika dadkii waa la isfahmay waa la soo dhaweeyaa dhalinyartii way is soo dhaweysaa waxaas dagaalkii waxa uu dhamaaday imika ma jiraan marka kubadaha la ciyaaray la isku xanaaqi jiray waxa ma jiraan imika kubadii rabadaantii imika kuubkii rabadaantii uu dhamaaday si fiican baa loo ciyaarayay imikana galabta ciyaar baa wada dhexmaraysa Jabuuti iyo reer Boorame marka ciyaarta natiijadeedana waan sugaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hoos Yaadiriye waxaan ahay dadka ku dhaqan magaalada Boorame aad baan jeclahay dadka ka soo xagaabaxa Jabuuti oo soo dhaweynaa horta dadka halka ka soo xagaabaxa Jabuuti wallahi waa dad firfircoon oo dadka dhex gala waan soo dhaweynaa adigu wali Jabuuti ma aragtay ma sanadka ma isleeyay marka qabowga xilligan kuleel way ahayd adigu marka waxa tahay ardayd reer Boorame imka ma forgalay marka sidoo aragtay ummadda reer Jabuuti ay nii soo xagaabaxa wallahi tu fiican baan arkay bulshooyin oo dadka dhex gala waxaan salaami lahaa hooyaday aabahay habareertay dhammaan dadka ay garanayo daawadayaal wali waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii ummadda reer Jabuuti ee soo xagaabaxday ee ku sugan magaalada Boorame waxaan nasiib u yeelanay niman reer Jabuuti oo iyakuna maanta Boorame yimiday si u ciyaaraan ciyaar saaxiibtinimo iyaka iyo reer Boorame waxaa halkaa waftiga ciyaartooyga hogaaminaya waa Muuse Biro waa nin aad Jabuuti u caana oo ahaana
antarneerkii tiimkii dakhil muuse bal maanta waxaad nooga warantaa muhiimadda dhoofkiinan aad uga timaadeen aad ku timaadeen boorama asalaamu calaykum waa su-aal wanaagsan xaamud waxa weeyaan marka horesahan kasoo salaamaya halkan xaamud oo halkan noogu yimiday oo ka duubaya qurba joogtan dhalinyarta reer jabuutiya ee soo xagaabaxday marka anoo ka faaidaysanaya maaragtay munaasabadan waraysigan ka faaidaysanaya waxaan halkan u imanay horta objectivekaan u imanay uu ahaa xagaabax nasasho aan u nasanayno seesoonka dambena sugi doona hadduu laadhada taa awgeed markaa dhalinyar badan oo reer jabuutiya soo xagaabaxdo kuwii horyaalka ciyaaray qaybta hore in maxaa horyaalka in hore iyo ka labaad iyo ka saddexaad baa ciyaaray waxaan ka faa'iidaystay markaa inaan isku keenno ama aan marti sharaf aan ka helno in badan qabanqabiyaasha kubadda cagta ee boorama aan ka helnay marka anaguna waan ka faa'iidaysanay inaan dhalinyar wixii halkan joogtay aan isku keenno inamo u badan tiimkii dakhilan aan sanadka dhito tababaraha u ahaa markaa ciyaarta mana duulaada ka faa'iidaysan inaan la ciyaari doono selectionan maxaa ay reer boorama aan la ciyaari doono markaa dhalinyartan imika adigoo aad hogaaminaysa sida watid gebi waa wada reer jabuuti miya waa wada reer jabuuti 100% waa wada reer jabuuti sida aan u ognahay aad waxaad ka timid iminka gabiiley markaa dhalinyartani reer jabuutiga ee maanta ku ciyaaraysa gebima waxay kula wada socdaan oo waxay ka yimaadeen gabiiley mise rag baad halkan kaga dartay boorama ay wallahi waan isku keenay qaar hargeysa ka yimiday qaar arabsiya ka yimiday qaar ka yimiday gabiiley ka yimiday iyo nabadana boorama inta majority doogan boorama aan ugu imanay marka waa selection adag oo reer jabuutiya oo la ciyaaraya selectionkan laga sameeyey magaalada boorama exactly oo representaynayaan different kalabadii jabuuti ka ciyaaray hadday noqoto qaybta sare iyo qaybta hoose iyo qaybta saddexaad hadday noqotaba iyagu laakiin majority-gu ay u badan yihiin ciyaartooygii sanadkii dhowtaan ciyaarsiinaya reer dakhil ay u badan yihiin waayahay maxaad is leedahay munaasabadani maxay soo kordhinaysaa sidees inii soo dhaweeyeen dhalinyartani maad aragtay reer boorama wallaahi soo dhaweyn horta aad u qurux badan baan ka helnay halkan inamada qabanqaabiyaasha ku jira inanka sabaroon oon ka helnay maxaaday marti sharaf fiican noo sameeyey oo markaabaan isaga isqaabilnay markaabaan ka wada sheekaysanay ciyaarta markaasaan u noqon namadii telefoonna ku wada hadlay wixii joogay hargeysi wixii gabileeyey wixii kale arabsiyo joogay kuwii booramana waan isku keennay markaa ciyaar wanaagsan baan ka sugayna hadduu ilaahay inaan ka soo bandhigna halkan namadan goboladan gabileyna waan soo arkay booramana waan arkay wallahi ciyaartooy aad u wanaagsan baa ku jira oon ku tala jira xitaa inaan uga faa'iideeyo shambanaagina jabuuti aan uga faa'iideeyo intii fiican aan dategseeyo aan halka aan geeyaan uga faa'iideeyaan doonaya gobodhamada gobolada waxaan ognahay imika championaga jabuuti ama horyaalka jabuuti waxaa looga yimaadaa afrikada wadanada afrikada ama isleedahay waxaa looga tegi doonaa dee goboladan imika aan ku sugannahay waan isleeyahay wallahi ciyaartooy aan la garanayn baa markii hore markaa fikradda markaan soo baxaya madaxaan ku hayahay inaan markaan magaalooyinka aan maro goboladan waqooyiga oo dhan aan maro aan detegteeyo xiriir aan la leeyahay namadii jabuuti maam waxaan diyaarinayna hadduu ilaahdo inaan xul ka sameyno boorami iyo gabiile iyo hargeysa xul aan ka sameyno on halkaa ku marti qaadnay hadduu ilaahdo haddaan markaa noqdaan kala sheekaysan doono guddigii ciyaaraha jabuuti marka waxyaaba badan baan uga faaidaysanaya shaahaygan xagaabaxa hadduu ilaah idhahdo waayahay kelmadaad ugu dambeysay waxaa tahay nin ciyaaraha aad ugu soo raagay dhalinyarta cuslaatay iyo kuwa imika kubadda ku jiraba maxaad oran lahayd wallahi waan oran lahaa ciyaarta waa caafimaad ay wada garanayaan dadku ciyaartooy jabuuti waxaad garanaysaa ciyaaraha dadka ciyaara waad garanaysaa intay leegin daadooda iftiin iyo telka jooradii hore ciyaare marka waan ku boorinayaa kubadda in laga hadhin haddii la weynaadiyo haddii la yaraadaba in laga hadhin waayo isboorku jirhkana uu wanaagsan yahay isku keenistiyo is ururintiyo bulshadana uu wanaagsan yahay hadduu la idhahdo aad baa mahadsantahay magacaaga iyo bal positionkaaga bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha samaroon cabdilaahi cilmi waxaan ka tirsanahay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka awdal waayahay waxaan arkayaa waa wax aad u qaaliya waa qabanqaabo aad looga soo shaqeeyey maxay tahay muhiimadda ka dambeysa wallahi muhiimadda ugu weyn horta waxa weyaan dee ciyaaruhu muhiimad keliyay leeyihiin waa in dadku lagu mideeyo ku walaaloobaan isku bartaan waxyaaba badan oo siyaasaddu kharibto iyo ciyaaruhuba saxaan oo hagaajiyaan marka gobolka dakhil gaar ahaan magaalada dakhil koox ka socota iyo marti noogu ahayd boorame saasaan markaa jeclaysan inaan ciyaar u qabanno qurux badan oo aan kusoo dhaweynano inaan tusayno inaan jecelnahay jabuuti oo dhan laakiin maanta ahaan iyagu maadaamay nala joogaan kooxda horyaalka sanadkana qaadi gaadhay waananu isleehay iyagaaba qaaday oo si iyagoo dee markii hore meel hoose ku jiray laakiin dadaalkaasoo dhan ay sameeyeen maamulka iyo dee tababarahan weyn ee caanka ee muuse cali iyaan jeclaysanay inaan us qabanno marka dhallinyaradii wax ciyaaraya maanta waa boorame waa magaaladii boorame iyo magaalada dakhil iyo ciyaar ma halkaasaad ku joojin doontiin mise magaalooyinka kale ee distrigada kale jabuutina waad u yeedhi doontiin may waa wax joogsanaya maaha oo dee xidhiirku weynaanaya
laakiin tajoore oo magaalooyinka dee ay kooxuhu ka jiraan tajoore cali sabiix iyo dikhilba waan brograamyo aan u dejinay baa jirta ka gobol ahaan iyo ka Soomaali ahaanba waxa kale oo noo dheer kooxi iyaguna waaweynaaye Djibouti caanka ka ahaa ee soo jireenka ahaa taariikhda lahaa iyaga laftigooga waa qorshe marka marba waxa la sameyn in si uun loo koox loo abaabulo oo u timaado ama loo tago marka maxay qorshaysanay ka maadaama oo maanta dikhil ay nitimid ay nikum isleedin ka Boorama ahaan ma tag doontii waan tagaynaa wada horeba waan u tagnay 2010 waan tagnay gobolka wax tagiduna wax weyn ma aha mushkilada ma aha waa in nidaamkii iyo protocolkii la soo maro dadku waxay ku bad waxyaabo badan bay dejinaysaa oo dadka siyaasaddu kharibto iyo ku badan dejinaysaa marka waan aad baan ugu faraxsanahay runtii ciyaartan maanta ka dhacaysa isleedahay waxay ma taqaanaa dhalinaysaa maxabo weyn oo ka dhaxayn doonta Djibouti oo dhan iyo madartay goboladani Soomaaliland wallahi dhalinaysaa waniga hore ku sheego siyaasaddu waxay kharibto iyo ku bad saxda marka dhalinyarada markay maanta isbartaan ay arkaan wiilka reer Boorame taga Djibouti markuu dhalinyarada la kulmo wax dee guryahoogu deganaan doonaa oo uma baahanayo inuu meel la'aan ku dhaco iyaguna saasi leeg oo isbarashadii iyo walaaltinimadii bay xoojinaysaa kubaddu ma inay qorshaysan tahay inaad dhawaan aadaan xagga iyo Djibouti qorshaysan tahay inaan koox xaggeeyno iyaguna koox nooga yimaadaan waliba imika waxaan rajeynayaa basketkii baa ka imanaya Djibouti basketkii Djibouti baa imanaya Hargeysa waxa kale oo iyadna la qorsheynayaa dee xul Soomaaliland leedahay oo gobolkan aan joognaana uu ka cadaan doono maadaama waahib badan in leeyahay gobolka Awdal iyo Salal in la sameeyo loona sameeyo barnaamijyo ay ku baxaan oo ay dibadaha ku tagaan way umada kubadaha xiisaysa maadaama taadagu in aad madartay Boorama uga caana xagan kubada cagta maxaad ku wanayn lahayd dadka umada ma taqaana kubadaha xiiseeya ee qurba jooga reer Djibouti iyo reer Boorama wallahi qurba joog ma wada oran karno way wada xun yihiin laakiin kaalintoodii ma muuqato oo dhalinyaro dadaala way jiraan laakiin waxa loo baahan inay ka xoojiyaan inta dhalinyarada way kuwaas waxay arkeen nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci waxbay arkeen inay ku soo kordhiyaan waxay ku dhaamaan dadka guduhuna de waxa ay arkaan wax nidaamsan oo socda way iyaguna waxay u baahan yihiin marka in la iskaalmaysto iyaguna dhalinyaradina mawaahibta lahaydna way joogaan iyaguna aqoonta iyo ku biiriyaan iyo su'aashii ugu dambeysay ciyaartooygan ka socda Djibouti waxaan arkayaa ciyaartooyda team dikhil waa team aad u weyn waxa goalkeeper ku haya goalkeeper oo aad u caan ah ma taqaana gaarda Republicaanka مسألة هاي دلنيرتن بورم شامبيونا وين عيارين إسكي علين كلا رجع والله ورطة دبعتيسك هاي هيستوي جرتا لكن هذا ندى الكيجو ما يرى لكن دلنيرتنا ودلنيرتنا وقف عن ويجران دلنيرة كلا يجونا في عن لكن ده قيمة ما كسر قادني يجونا واقح عن قيمين إنه قدرنا في عن كل عيار هرنا ويا شيء إن كستو وقت يقوبنا ويبربرها وده قلين ما تنا عيار في عمر رجينا نقول ورجينا يجون ورجينا مركب ورث ما قاعد ما تاني بوزيشن كعاد ما دركتي كتاجنت هاي عم عاد متشد بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحوي عبد الوهاب يوسف إبراهيم وعلى استواء عيارها قبل كأول سواء ما هي تايمانت مهمة دعوة قبل قابسن عيارتن بورما يدخل بسم الله الرحمن الرحيم وحوي عيار صاحب تنمو سودوين لأنه كسر حاجة بحري جمهورية جيبوتي وعليه هنا كتشوف حاجة بحر مقعد بورما قبل كأول عنو سميني يدليرو قبل كأول عيار صاحب تنمو سيحكي كبشدة iyo ka qayb qaadanaysa isbarashada iyo horumarka sportiga waxaan u rajeynayaa laba kooxoodba ciyaar wanaagsan oo qurux badan inay soo bandhigaan oo soo jiidasho leh mar labaad waxaan salaamayaa dhalinyarada reer Djibouti oo mar walba xagaabax markay halka yimaadaan ciyaaro fara badan iyo tartamo fara badan halka ka qabta wax badan oo kusoo kordhiya gobolka dhinaca sporti dhinaca horumarin dhinaca ganacsi iyo wax walba oo kusoo kordhiya gobolka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay anaguna mar insha Allah hadii ilaahay yiraahdo waan taragaraynaa inaan nimaadno Jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale waanu visit ku nimaadno si mar horeba dhacday waana filaynaa taasi inay suurto gali doonto hadii ilaahay yiraahdo anagoo soo dhaweyn fiican ka helnay shacabka Djibouti dawladda Djibouti dhamaanteedba markii hore imika waxaan filaynaa tii kale inaanu ka heli doono hadii insha Allah ilaahay yiraahdo way dhalinyar badan oo reer Boorama waxay sheegeen inaad ka liidatiin xagga arbitrage-ka ama garsoorayaasha mas'uuliyiinta federationka Djibouti maadaama oo saad hore ugu sheegtay aad xidhiidh inaga dhaxeeyo hore inaad u ziyaarateen aad u tagteen inay naga caawiyaan dhinaca tababarada taasi waa mid aad muhiimad weyn u leh waana baahi aad u jirta oo taabatay dhalinyarada gobolka mana jiraan wax tiriino sanadii u dambeeyay la sameeyay oo la tababaray garsoor ama la tababaray kooshka oo iyo tababar maxaa garsoorku waxay muhiimad aad u weyn aad ayaan ugu rajaynayaa inaanu ka helno walaalaha Djibouti inay noo fidiyaan inay tiriino Djibouti Somaliland oo dhan
iyo dhallinyaradeeda wasaarad ahaan iyo dhallinyaraba loo fidiyo gaar ahaan gobolka inaanu ka helo tababar iyo agaba wixii suurtagal ah inay noo suurtageliyaan oo noo fududeeyaan hawshaas aad iyo aad baan ku rajooynaa maadaama tahay agaasimaha isboortiga ee gobolkan awdal in intee lagayay mataqaanaa ay garab joogaan shicibka iyo mataqaanaa dowladuba somaliland aad iyo aad way su-aal muhiim weeyey in badan aad bay noo garab joogaan waxaana ka muuqatay ciyaarihii gobolada u dambeeyey la qabtay taageeradii iyo dadaalkii ay noo muujiyeen shacabka reer boorama maamulka dowladda oo aan dhammaantood u kala harin dadweynaha nugu tagnay hargeysa oo iyaguna si fiican noo soo dhaweeyey iyo qurba joogtaba oo aanu aada ugu mahadnaqayno sida yas sport oo uu inaba aad tabaabasho fiican iyo hawl badan ka qabtay gobolka iminkana ku tali jira inay hawl fara badan ka qabtaan gobolka iyo degmooyinkiisa kaleba aad iyo aad bay u baahsan yihiin dhallinyaradaasina kulley dadku aad bay noo garab joogaan mar walba bismillahi magacayga waxaa la idhahdaa fuaad cabdisamad sheekh axmed waxaan kugu magac dheerahay seed waxaan ka tirsanahay guddiga isboortiga ee gobolka awdal magaalada boorama halkan maanta waxaa garoonkan camuudi stadium ku wada ciyaarayo ciyaar saaxiibtinimo ku ciyaaraya labada kooxood koox ka socoto dakhil ood ogtihiin in magaalada jabuuti ay 120 kilomitir galbeed ka xigto iyo gobolka awdal magaalada xiisa boorama markaa dhallinyarada maalin dhaweytan waa wada ciyaareen maantana waa maalin maashkoogii labaad aad ayay dhallinyarada reer jabuutina u dhisan yihiin qoladan booramana aad bay u dhisan yihiin aniguna waxaan ahay maanta garsoorka dhexdhexaadin doona ciyaarta si cadaaladana ku dhexdhexaadin doona walaalahay reer jabuutina waxaan leenahay markuu xagaagu bilaabmo inay noo yimaadaan si dhallinyarada isku bartaan oo inanka maanta halkan inanka reer boorama ku bartay waxaa la doonayaa inuu dakhil markuu tago kusoo dhaweeyo annaguna waxaan leenahay haddaan mas-uuliyiinta gobolka awdal ee wasaaradda isboortiga nahay waxaan leenahay walaalahayga reer jabuuti gaar ahaan qolada fatrisaga ee jabuuti inay noo yimaadaan oon isbarano oon isdhex galno ayaanu jecelnahay maadaama waqtiguna cidhiidhi nugu yahay waxaanu ku maadsan qoladan saxaafadda ee isku mashquuliya inay maanta noo yimaadaan ama isku howlga saaray inay maanta nagala qaybkaan xafladda aanu qabanayno labada magaalo boorama iyo dakhil aanu ku mataameynayno hadduu ilaah na gaarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan marka hore waxaan salaamayaa bahda tv-ga marka labaad waxaan soo dhaweynayaa gobolka dakhil anigoo ku hadlaya gobolka awdal kartankoogii runtii waxaan u rajeynayaa ciyaar qurux badan ciyaartan waa ciyaar saaxiibtinimo oo muhiimadeedu tahay in la isku dhex galo oo labada gobol isku bartaan insha allahu tacala waxaan rajeynaya ciyaar qurux badan inaan soo bandhigi doono waayahay adigu waxaad tahay nin ciyaartooy halkanna waxbaad ku sidataa maxaa la odhan karaa tusbaxani ma ciyaartuu ku caawin doonaa inaad ka badisin jabuuti no may maaha tusbaxan sideeda kale gaarka waan iskaga wataa hadhow markaan ciyaartu bilaabi doontana waxaan u dhiibi doonaa garsooraha magacaygu waa cali maxamed dugsiye isakii waa ku magac dheerahay xagee kasoo xagaa baxday waxaan kasoo xagaa baxay jabuuti waxaan deganahay xeebley marka bulshada reer jabuuti halkan soo xagaa baxday baan kamid ahay waxaanan u imiday inaan halkan ku nasto on kunji anoo ah fasax ku imiday waxaana halkan maanta fursad u helay inaan ka qayb galo oon daawado dhalinyaro reer jabuuti oo ah u badan intooda badan xulkii dakhal oo maanta la ciyaaraya xul ah awdal iyo silal isugu jira oo halkan ah ciyaar fiican baan rajeynaa inay dhex martoon inta badan waxaan jecelnahay in haddaan reer jabuuti nahay xulka reer jabuuti inuu guulaystaan aad u jecelnahay adigoo ka faaidaysanay fursadani aad konshiga tahay maadaama lagaa daawanayo tvgii ayaad is leedahay maanta bal mataqaanaa reer jabuuti u sheegtid balse inay soo dhaweeyeen dadkan aad usoo xagaa baxdeen aad horta bulshada jabuuti baan aad u salaamayaa iyo xukuumaddii dhammaan mudan ismaaciil cumar gille madaxweynaheenii dhammaan xukuumaddiisa waxaan kaloo salaamayaa wasaaraddeedii aad u salaamayaa oo ahaa minister of commerce wasiirkayga aad u salaamayaa axmed xasan ducaale waxaan aad u salaamayaa oo kale dhammaan eheladayda inta jabuuti joogtay inta halka joogtaba intaa kadib waxaan u sheegi lahaa in halkan aan ku helnay fursad ballaaran soo dhoweyn wacan iyo nasase aad u badan jawi fiican roob leh wax kasta leh nabad leh wanaag leh marka alxamdulilah aad baan ugu mahad celiyeynaa waddankan aan joogno somaliland iyo xukuumaddeeda dhammaan iyo bulshadeeda gaar ahaanna bulshada ku nool boorama ayaan aad u salaamaynaa aad ugu mahad celiyeynaa soo dhoweynta wacana ayna siisay ana dareesanahayna inaan waddankeenii aan joogno weli hadda ugu mahad celinayaa waa kaas alxamdulilah bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waxaan iminka joogaa jaamacaddii camuud magacaygu waa axmed maxamed meerane oo axmed janaal ku magac dheer tiimkan jabuuti waan ka imanay tiimkaygu waa dakhil marka xaggan ciyaar saaxiibtinimaan la joognaa rag saaxiibadeeda oon doonnaa inaan ku ciyaarno oo reer boorama waad mahadsantihin waxaa la yidhaha muraad maxamed saciid waxaan joogaa jaamacaddii camuud waxaan ciyaaraynaa ciyaar asxaabnimo waxaan u ciyaaraa jabuuti maaragtay dakhil marka xaggan waxaan usoo xagaabax baan u yimiday maantana waxaan ciyaarayaa maaragtay ciyaar asxaabnimo
dee waxaan salaamayaa maaragtay baalkii jabuuti baan salaamaya ummadda reer jabuuti oo dhan iyo wixii dee asxaabtay oo dhan. magacayga waa xabse mawlid axmed. horta marka ugu horeysa waxaan hambalyeelaya inamada xagga nagu soo dhaweeyey uu samaro nagu horeeyo iyo inamadana duubaya. waxaan ka soconnaa magaalada jabuuti, waxaan joognaa waa camuud, waanu soo xagaabaxnay, waxaan iskugu imanay ciyaar saaxiibtinimo xulkii buurama intaan la ciyaarno. jabuutina waxaa ciyaaraa kaleebka dakhil kooshka golo muusabir. asalaamu calaykum waraxmatullahi. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. anoo ku magac dheer xasan muuse hiriir. xaggan waxaan ka salaamaya horta maamulka xaggan boorame si fiican noo qabtay, si fiican noogu soo dhaweeyey magaalada boorame. intaa ka horna waxaan u ciyaaraa nudakhil baan u ciyaaraa. dee xaafadeedii faamigeyga waan wala salaamayaa. ininkuna ku mahadsantiin sidaa noo soo sharfiseen, maasha amikaalna waa naga dhexaysiiyeen. sidaa un baan darajeynaynaa. cabdilaahi cumar maxamuud, waxaan u ciyaaray ekiibka dakhil. waxaan aad u salaamaya, waxaan baleenaya inamada reer boorame si fiican noo soo dhameeyey iyo mas-uuliyiintoodaba aad baan u salaamaya. hambal iyaan ka leeyahay. raxiim alxamdulilah, waxaan ugu mahadinayaa ilaahay maxamuudna keenay. maxamed cabdi cali axmed baa la idhahdaa. maanta jaamacadda camuud baan joognaa. waxaan ku mahadinaynaa dadka reer boorame halkan saan noogu soo dhaweeyey, noogu soo qabanqaabiyey ciyaarta saaxiibtinimada leh. anagu xagaagabaxba halkan u imanay. waxaanu ciyaaraa kooxda kaarsayn sidisida kaarsayn. kooshkayga waxa weeyaan shiine. saa ugu mahad ummadii reer jabuuti oo dhan waan ugu mahad celinayaa. aniga magacayga waxaa la yidhahaa liibaan mustafe maxamed. waxaanu ciyaaraana kubadda jabuuti baan ciyaaraa, shampiyoonaha jabuuti sidisii kaarsayd baanu ciyaaraa. waxaan rajeynayaa dee ciyaar qurux badan. reer boorame si soo dhaweeyeen? wallaahi si fiican bay noo soo dhaweeyeen. annaguna dee markayaga waxaan jecelnahay inaan sidaasi ka fiican u soo dhaweyno. okay, ninku waad ciyaartiin shampiyoonaha maad aragtay macnaa xoog weyn masleydin maanta dhallinyartan reer boorama marqooga cabis. taa ilaahay baa garane sida taalle u dhici. tiimka jabuuti u ciyaaraysay? magacayga waxaa la dhahaa cabdirasaaq muuse fc dikil baan u ciyaarayey. waxaan si aad u hambalyannahay dhallinyarta reer boorame si fiican noo soo dhaweysay, si fiican key fiican noo samaysay, maash fiican noo rajeynaa insha Allah. masleediin iyakuna dakhil baad geynaysiin oo si fiican u soo dhaweyn doontiin? insha Allah waan soo dhaweyn doonaa. annaguna siday naga yeeleen si ka daran ma ka yeeli doonaa insha Allah. aad baa mahadsan tahay. waayahay magacaaga, tiimkaad u ciyaartid iyo maanta sidaad u arkaysid ciyaartan? ani magacayga waxa weeyaan cabdiqaadir ismaaciil. waxaan u ciyaaraa ekiibka gaardi republika. wallahi dee maanta ciyaar wanaagsan baan sugaynaa. marka aduu askari baatay markaa? anuu askari baan. marka sayni soo dhaweeyay boorame? wallahi si fiican dee sidii aan filaynay iyo si u dhowmaha ragga walaalaheen dee ciyaar fiican baan ka sugaynaa. runtii isboortigu waayadii hore wuxuu ahaa fan xaamudow. iminkase wuxuu noqday business iyo fan isku jira. waxaana xoog badanba inuu business noqday. gobolkan aan joognay awdal oo dhallinyaro fara badan oo talent leh xagga kubadda cagta, orodada, basketka iyo dhan walba, walow aanan waxyaalahani gacanta laga ciyaaro ee table tenniska ee waxa la xiriira aynaan weli awood badan ku lahayn oo imkaaniyaadku aanay noo saamaxayn. haddana gobolka waxaa jooga dhallinyaro talent fara badan leh. nasiib darrada dhallinyarada haysata gobolkan awdal gaar ahaana magaalada boorame number 1 waxa weeye meel alla meel ay cag dhigaan ma jiro. dhulkii ay ku faalalayeen ay kubadda ku ciyaarayeen oo dhan waa guryo iyo meel ay dad leeyihiin. dhallinyaradu waxay wax ku ciyaaraan, waa laga yaabaa inaad soo sawirtay jago 30 by 30 ah ama 20 by 15 ah. waxaa yaab igu noqotay buurta shaqale joohar korkeeda anagoo korayna xaraarta dhaadhaca meel la qoday oo jago laga damacsan yahay oo malaha 10 by 15 ah in xataa jarkaa ay kubad ay garoon ka dhigan ay ku ciyaarayaan. marka waxa weeye dhalinta haddii loo samayn waayo meelo ay ku faalalaan oo ay ku ciyaaraan iyagoo tiradoodii ay badatay oo aan ogsoonahay maanta 10,000 oo arday ay magaalada boorame joogaan oo da' walba leh, inay taasi keeni doonto dhallinyaradu inay u leexdaan waxyaalo dhaqanka iyo usluubta iyo mustaqbalkoogaba xun. kow waxaa ka ah waxyaalaha maanta aan arkayno ee dhalintii boorama maalin dhaweyto oon goroy cawl joognay ilaa 40 dhalinyaro ah ayaa xagga customka inoo dhexeeya innaka iyo maxay ahaydee Ethiopia ka soo yaacay. waan la yaabna waxaan dhalintan yaacaysa maxay tahay? waxa la yidhi waa kuwo askari ka hor timiday oo tahriibayay. ninka dhalinta yari waxa weeyaan wuxuu qabta hadduu waayo
ama hadduu waxbarashadii dhammeeyo uu dugsigii sare ka baxo jaamacaddii ka baxo uu shaqo waayo waxa weeyaan wuxuu isku dayayaa inuu naftiisa halaago waalidku way la yaaban yihiin oo waxay leeyihin dhalinyarada maxaa kalifaya ama dadka kale maxaa kalifaya sow kuwani maaragtay meel seexdaan iyo waxay cunaan iyo iskuul haysta laakiin ninka dhalinta yari arrintaa wuu ka magaranaysaayay in duwan yahay waxaan runtii laba arrimood baan soo jeedinaya oo talo ah talo waa dadka meesha degan talo kalena waa dadka dibadda ku nool dadkan halkan degan si ay dhalinta xagga isboortiga ay ugu dhiiradaan oo dhaqanka xun ay uga maaragtay ilaaliyaan oo number 1 uu qaadka iyo sigaarka iyo waxyaalo kale ay ku jiraan iyo tariibta aan ka hadlay waxa weeye waa inay dawladda hoose xil ka saaran yahay ee ay soo doorteen waa inay sidii ay garoomo ugu raadin lahayd dhul bannaan oo lacag badanna ku kacaynin oo dhulkan la iska wada qabsaday dadku iska wada maaragtay meegaarteen nin walba uu leeyahay intuu beer yar laba qoodi meel ka sameeyay ilaa xad uu 2 kilomitir iyo 3 kilomitir sameeyay in dhalinta iyo bulshada iyo community-ga dhul loogu talagalo dhulkaasina waxa weeye haddii dawladdu xataa lacag ay weydo waxaan iyagana fariin u farayaa kuwa dibadda jooga ee faraha badan leh ee ama Yurub jooga ama dhulka Carabaha jooga ama wadamada kale ee adduunkaba jooga inay sanduuq u sameeyaan account u sameeyaan ay ku horumarinayaan sportiga oo haddii ama qalab loo soo iibinayo ama haddii lacag xataa yaanan dad lacagtu waa saxo marka lacag qof gacanta laga saaro waxay maraysaa waxa laga yaabaa meel kale maraysaa laakiin xataa ay qaarkood yimaadaan oo garoomada aan ka hadlayo iyo dhulka aan ka hadlayo ay ku kalifaan dawladda iyo dhaqaalihii wada iyaduna waxay qabanayso inay u baneeyaan haddii markaa dhul fara badan oo ama loo iibiyo oo lacag jaban loo siin karayo looga taago birihii loo hagaajiyo dhalintu way ka raysanaysaa guryahan ay ku ciyaarayaan iyo dariiqyadan ay ku ciyaarayaan iyo sidaan arkay buurta shaqale joohar jarkeedii xaraartii oo xataa qaar hadday 4 tallaabo bannaan helaan ay ku ciyaarayaan runtii waxa weeyaan anigu waagan kubadda bilaabay anigu nin reer camuudeedaan ahay magacayguna waa maxamed daawud qawdhan malaha waxaan u malaynaa anoo 7 jira ayaan bilaabay maantana 750 baan marayaa 50 years baan ciyaarayaa waxaan u malaynayaa nin yaqaaniin niman aqoon kolley anoo meel gaaban ka soo qaadaya waxaan soo socdaba waxaan ahaa number 5kii waqooyi gobolada waqooyi waxaan tababar u geliyoon u diyaarsanaa inaan number 5kii qaranka Soomaaliyeed noqdo laakiin waan ka tagay kubad meel kastoon tago adduunyada markaan meeshaan tago aan habeen joogo habeenka labaad meel lagu ciyaarayaan wareystaa waxa igu noqotay hobby dhinaca kale xagga atleetikada runtii xamadow iyadna waxa nasiib wanaag ahayd oo waxaan kubadda ka wada fiicnayd 75 ilaa 78 aan xamar ka tagayay oon xagga naadiyada galay orodka 400 la Soomaaliya ninkii ugu wanaagsanaa ayaan ahaa waxaan u malaynayaa maxay ahayd rag fara badan oo caanahi way garanayaan maxamed daawud qowdhan laakiin anigu waan iska diiday inaan ka qayb galo orodada markaa waxaan ogsoonahay mar labadan oo ku celinaya waxaa jira dhalinyaro talent leh dhalinyaro kubadda ku fiican orodka ku fiican weliba orodada ku fiican inaan xoog badan saarno inaan keli haato oo inoo soo baxa oo ciyaaraha heerka caalam gala ayaa lacagta aan raadinayna iyo gobolkani waxyaalaha uu raadinay mashruucu sameeyo ku filan way hundreds of millions of dollars baa dhalinyarada ciyaaraha ku fiican adduunka naadiyada waaweyn loo qaataa yani waa business ka weyn ma jiro arrintaa ka weyn marka waxa weeye dadka waxaan ku dhiirigelinaya waan wax yar baan ka oran doonaa waxaan ku dhiirigelinayaa dibadda iyo docdaba dhalinyarada sidii loo dhisi lahaa dawladda hoose inkastoo jaamacadda hadda wadno inaan nidaam sameeyno masalan 12 kuleedood ama 12 kuleedood jaamacadda Camud University in laga sameeyo teams kana loo sameeyo horyaal oo koob loo dhigo oo ay sanadka oo dhan u socdo sida naadiyada hadhowna ay ka soo baxaan dhalinyaro u safan karta gobolka amaba ummadda Soomaaliyeed matali karta haddii la ka dhigo anigu imika intaan dalka joogay Mareykanka ka soo noqday waxaan isku dayay inaan runtii wax sameeyo markii ugu horeysay Camud baan tagay Camud way yiri suurtoobi weeday sababo awgood walka jaamacadda Camud ku taalo imika garoon baan ka sameeyay Goray Cawl kulley garoonka waxaan ugu talagalay dhalinta culus inay ku ciyaarto laakiin wuxuu iska noqdayba
in uu cid walba timaado oo xaamudo aananu maaragtay halkaas ku baranay qudhadiisu uu la yaabay marka insha Allah garoonkaana waxaan jeclahay inaan xidhno beerno garoon rasmi ah uu noqdo taa waxaan u sameeynaa wax kala ma haddii awood u saamaxdo waxa weeye waxaad moodaa wixii dadka ka dhaxeeyay ee community-ga u ahaa midka ay ka haayeen ama dawladda gacanta ku haysay ama magaca lagu sheegay oo dhani inuu yar fail garoobay magacayga waa Axmed Xuseen Shaafici waxaan ka mid ahay contractorska laba contract ee maartay garoonkan hawshiisa shaqo qabanaya marka qaybta aan anagu company-gayga waxa la yiraahdaa Dealer Establishment for Commerce and Contracts waxa weeyaan qaybta aanu hawsha ka qabanayna waxay tahay dayactirka guud ee deyrka oo imikaba aad arkaysaan kamaraduna ay hayso sida loo wado kaasoo ah in maaragtay wixii dayactir ah lagu sameeyo in kaabadaha si dibadda ka muuqdo oo iyagana aad arki doontaan oo maaragtay gidaarada celinaya loo sameeyo in birahaasi iyo silig lagu wareejiyo garoonka in qaybta kale ee aanu waxqabadka ka qabanayno waxa ka mid ah deyrka markaan shaqada ka qabanno wax alla wixii dildilaacana ka sameeyno waxaanu u dhameystiraynaa wax alla wixii qurxin u lahaa waxaanu sameynaynaa 3 albaab oo ah albaabo waaweyn oo midkiiba 5 mitir yahay albaabadaas waa albaabada mid labada dhinac u kala dhaqaaqay u kala orda barna isku yimaada ay noqon doonaan laba argo oo waaweyn oo loo sameyn doonaa oo magaca garoonka lagu qori doono waxa kale oo aanu sameynaynaa meelaha tigidhada lagu jarayay oo maaragtay iyagana laba qaybood ah waxa kale oo aanu sameynaynaa meelaha ciyaartooygu ay galayeen ee ah halkii ay ku meedhanayeen suuliyadoodii intaas baanu sameynaynaa waxa kale oo aanu sameyn doonaa qaybta ugu weyn oo iyaduna ah marka cabirka garoonka uu fadhiisto inta lagu ciyaarayo kubadda inta lagu ciyaarayo waxa weeyaan inta waxa lagu wareejin doonaa biro ah biro security ah oo maaragtay ciyaartooygaas uu gaar ah oo laba meelood ay ka soo galaan mooyaan intiisa kale la xidhi doono waa shaqada iyana ugu ballaaran ee la qaban doono waxa kale oo aanu sameyn doonaa qaybta bariga ka soo jeeda iyana waxaan u sameyn doonaa meelo ciyaar ay fadhiistaan dadku oo qayb ka mid ah inkastoo qaybta inteeda badan contractorka kale ee aanu wada qaadanay garoonka uu sameyn doono inta iyo VIPD iyo shaqooyinka kale contractor kale ayaa sameyn doona marka waxa weeyaan waa shaqo runtii aad iyo aad u ballaaran waana shaqo la rabo in ay ku dhamaato muddo 2 bilooda garoonkani waa garoonka kaliya ee maanta magaalada Boorama ka jira lana rabo inuu bal waxoogaa isbedel sida maaragtay awal waad arkaysaa nimika waxa weeyaan qashinkii wax qabadkiisii aad u litay laakiin maanta inuu soo yara gaadho oo maaragtay sidii garoon inuu ekaado ayaa maaragtay mustaqbalka la raba hadii la yiraahdo intaasi aynu daawadayaal ku soo gunaanadeyna barnaamijka Jabuuti ee toddobaadkan waxaana barnaamijkan si wada jira idin daadihinayay anigoo ah Cabdi Fataax Axmed iyo Xamed Ibrahim tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.